agaasimihii Villa Soomaaliya uu shaaciyay sababta isku casilay iyo qorshe uu wato. Maxay tahay warkan ka soo baxay agaasimihii hore ee Villa Soomaaliya iyo qorshahan uu sheegay inuu wato? Maxaase ka ogtahay xogtan? Qaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco. Aynu ku bilownay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud ee dhawaan is casilay ayaa maanta soo saaray qoraal uu uga hadlayo arrimaha ku xiran xilka tagistiisa. Xuseen oo xilka agaasimaha guud ee Villa Soomaaliya hayay 23 May 2022 ayaa waxa uu sheegay inuu isku casilay damciisa siyaasadeed ee xilka u sareeya maamulka Koonfur Galbeed. Waxaan uga tagay xilkii agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya kadib markii uu ugu xegeystay dareen iyo weeshaday oo ah xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo markii aan in badan dhageystay talooyinka shacab iyo siyaasiyiin badan gaar ahaan kuwa deegaanka, garowsadayna inay lama huraan tahay inaan waqti dheeraad siiyo ka shaqeynta danaha dadka iyo deegaanka Koonfur Galbeed ayuu yidhi. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii ay bulshada reer Koonfur Galbeed u heli lahaayeen isbeddel loo aayo si nabad iyo dimuqraadiyad ahna ku yimaada. Waxaan sii wadi doonaa oo aan gelin doonaa dadaal aan kala go' lahayn guud ahaan ka qayb qaadashada dadaallada dowlad dhiska ee madaxweyne Xasan Sheekh u taagan yahay, ayuu sidoo kale ku yiri qoraal uu soo saaray. Xuseen Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday bulshada reer Koonfur Galbeed inay ku garab istaagaan arrintan, isagoo ballan qaaday inuu hormuud ka noqon doono sidii reer Koonfur Galbeed ay ku heli lahaayeen hogaamin leh sinaan, cadaalad, karti iyo ammaano dhinac kasta. Haddaba qoraalka uu soo saaray Xuseen ayaa waxa uu dhignaa sida tan: ka hore waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa inaan si rasmi ah isaga casilay xilkii agaasimaha guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aan hayay laga soo bilaabo 23 May 2022. Waxaana markii xigta alle ka soo mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo mas'uuliyaddan ii igmaday fursadna ii siiyay inaan dalka u adeego. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada kale ee garabkii ahaa muddadii aan mas'uuliyaddaasi hayay. Muddadaasi kooban ee aan hayay xilkan wuxuu Ilaahay u guuleeyay inaan si hufan u guto waajibaadkayga, isbeddel la taaban karana ku soo kordhiyo madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan hufnaanta maamulka iyo xafiiska iyo ku gacansiinta madaxweynaha siyaasadihiisa ku wajahan dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaan uga tagay xilkii agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya kadib markii uu xoogeystay dareen weeshaday oo ah xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo markii aan in badan dhageystay talooyinka shacab iyo siyaasiyiin badan gaar ahaan kuwa deegaanka, garowsadayna inay lama huraan tahay inaan waqti dheeraad siiyo ka shaqeynta danaha dadka iyo deegaanka Koonfur Galbeed, taasoo aaminsanahay inay u baahan tahay hoggaan leh jecelo, aqoon, ammaano, waayo aragnimo iyo damiir ummadeed una horseeda deegaankaasi horumar dhanka amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo mid bulshaba leh si looga faa'iideysto kheyraadka Alle ku manaystay Koonfur Galbeed, isla markaana ay hormuud u noqoto dalka intiisa kale. Waxaan sii wadi doonaa oo aan gelin doonaa dadaal aan kala go' lahayn guud ahaan ka qayb qaadashada dadaallada dowlad dhiska ee uu madaxweyne Xasan Sheekh u taagan yahay, gaar ahaan sidii ay bulshada Koonfur Galbeed u heli lahaayeen isbeddel loo aayo si nabad iyo dimuqraadiyad ahna ku yimaada. Ugu dambeyn, waxaan si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed inay garab igu siiyaan xaqiijinta himilooyinkaasi, anigoo Alle hortiis ballan qaadaya inaan hormuud ka noqon doono sidii reer Koonfur Galbeed ku heli lahaayeen hogaamin leh sinaan, cadaalad, karti iyo ammaano dhinac kasta. Wabillahi tawfiiq ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa agaasimaha hore ee madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen. Waxaana sheegay haatan inuu markaasi iskaga casilay xilkiisa inuu madaxweyne ka noqdo maamulka Koonfur Galbeed. Agaasimihii Villa Soomaaliya uu shaaciyay sababta isku casilay iyo qorshe uu wato? Maxay tahay warkan ka soo baxay agaasimihii hore ee Villa Soomaaliya iyo qorshahan uu sheegay inuu wato? Maxaase ka ogtahay xogtan? Qaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco. Aynu ku bilownay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud ee dhawaan is casilay
ayaa maanta soo saaray qoraal uu uga hadlayo arrimaha ku xiran xilka tegistiisa. Xuseen oo xilka agaasimaha guud ee Villa Soomaaliya hayay 23 May 2022 ayaa waxa uu sheegay inuu isku casilay damciisa siyaasadeed ee xilka u sareeya maamulka Koonfur Galbeed. Waxaan uga tagay xilkii agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya kadib markii uu ugu xegeystay dareen iyo weeshaday u ah xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo markii aan in badan dhageystay talooyinka shacab iyo siyaasiyiin badan gaar ahaan kuwa deegaanka, garowsadayna inay lama huraan tahay inaan waqti dheeraad ah siiyo ka shaqeynta danaha dadka iyo deegaanka Koonfur Galbeed, ayuu yidhi. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii ay bulshada reer Koonfur Galbeed u heli lahaayeen isbeddel loo aayo si nabad iyo dimuqraadiyad ahna ku yimaada. Waxaan sii wadi doonaa oo aan gelin doonaa dadaal aan kala go' lahayn guud ahaan ka qayb qaadashada dadaallada dowlad dhiska ee uu madaxweyne Xasan Sheikh u taagan yahay, ayuu sidoo kale ku yiri qoraal uu soo saaray. Xuseen Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday bulshada reer Koonfur Galbeed inay ku garab istaagaan arrintan, isagoo ballan qaaday inuu hormuud ka noqon doono sidii reer Koonfur Galbeed ay ku heli lahaayeen hogaamin leh sinaan, cadaalad, karti iyo ammaano dhinac kasta. Haddaba qoraalka uu soo saaray Xuseen ayaa waxa uu dhignaa sida tan: marka hore waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa inaan si rasmi ah isaga casilay xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aan hayay laga soo bilaabo 23 May 2022. Waxaana markii xigta alle ka soo mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo mas'uuliyaddan ii igmaday fursadna ii siiyay inaan dalka u adeego. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada kale ee garabkii ahaa muddadii aan mas'uuliyaddaasi hayay. Muddadaasi kooban ee aan hayay xilkan, wuxuu Ilaahay u guuleeyay inaan si hufan u guto waajibaadkayga, isbeddel la taaban karana ku soo kordhiyay madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan hufnaanta maamulka iyo xafiiska, iyo ku gacansiinta madaxweynaha siyaasadihiisa ku wajahan dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaan uga tagay xilkii agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya kadib markii uu xoogeystay dareen i weeshaday oo ah xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo markii aan in badan dhageystay talooyinka shacab iyo siyaasiyiin badan gaar ahaan kuwa deegaanka, garowsadayna inay lama huraan tahay inaan waqti dheeraad ah siiyo ka shaqeynta danaha dadka iyo deegaanka Koonfur Galbeed, taasoo aaminsanahay inay u baahan tahay hoggaan leh jeclo, aqoon, ammaano, waayo-aragnimo iyo damiir ummadeed una horseeda deegaankaasi horumar dhanka amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo mid bulshaba leh, si looga faa'iideysto kheyraadka Alle ku manaystay Koonfur Galbeed, isla markaana ay hormuud u noqoto dalka intiisa kale. Waxaan sii wadi doonaa oo aan gelin doonaa dadaal aan kala go' lahayn guud ahaan ka qayb qaadashada dadaallada dowlad dhiska ee uu madaxweyne Xasan Sheikh u taagan yahay, gaar ahaanna sidii ay bulshada Koonfur Galbeed u heli lahaayeen isbeddel loo aayo si nabad iyo dimuqraadiyad ahna ku yimaada. Ugu dambeyn, waxaan si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed inay garab igu siiyaan xaqiijinta himilooyinkaasi, anigoo Alle hortiis ballan qaadaya inaan hormuud ka noqon doono sidii reer Koonfur Galbeed ku heli lahaayeen hogaamin leh sinaan, cadaalad, karti iyo ammaano dhinac kasta. Wabillahi tawfiiq ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa agaasimaha hore ee madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen. Waxaana sheegay haatan inuu markaasi iskaga casilay xilkiisa inuu madaxweyne ka noqdo maamulka Koonfur Galbeed.